waxa maanta tuulada Ballicigaal laga hirgeliyay malcaamad Quraan taas ay wax ku baran doonaan bulshada ku dhaqan deegaanka waxaana malcaamadaasi dhisay qurba joogta deegaankaasi xalfad loo qabtay xadhiga jarka malcaamadaasi ayaa waxa goob joog ahaa wakiilka qurba joogta deegaankaasi Axmed Ismaaciil Warsame musharax xildhibaan Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde cuqaal culimo iyo siyaasiyiin ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay dadka deegaankaasi waxaanay u mahadnaqeen qurba joogta deegaankaasi oo maanta malcaamadaasi ka hirgeliyay deegaanka Ballicigaal waxaana hadaladoodii kamid ahaa anigoo ku hadlaya magaca magaalada Ballicigaal waxaan salaamayaa odayaasha culimada waxgaradka noo yimi xafladda maanta lagu soo tixgeliyay marka hore salaamaya mar labaad waxaan salaamayaa malcaamad quraanka madrasada xafladeeda maanta aan joogno ee naloo dhisay ee aanu marka xafladeeda dhigayno cid allaale ciddii wax ka geysatay hadday noqoto gacan hadday noqoto adduun hadday noqoto ray waxa aan salaamayaa ciddii alla ciddii wax ka geysatay qurbajoog ka noqoto waxa weeye waan mahadnaqaynaa haddii aan la yidhaha soomaalida waxay ku maamulay marka weylaha la helo ayaa looga la maalaa marka dad la helo rabaysan dad la helo dad rabaysan la helo dad tabsan oo diinta hadii bidkii fahansan la helo bini'aadanimo la helo ayay arrinkuna imanayaan wax walba aakhiriya adduunka wax lagu gaaro talada wacan iyo aakhiriya adduunka lagu gaaro haday taladu ka xumaato aakhiriya adduunka way kaalumaysaa cid kasta oo arrinta soo abaabushay وسوء أجاسنتي أو رح كديستي لامبركو أحمد حاج إسماعيل ورسمه أيام مدرسة موقعني عد كستها قوة ديفصله أما كل جورا حقو كورناتور إنك أيام موقعني باسمه هذا أول تمي يا معلك نواب الله قاضي متسند المشاهدين فإن لقى بحيه أنا قلنا إن أنا وحي حلقة حق يقع أنا آدي سقعت كينتون arday marka kuntana ayaa joogta deegaanka inta miyiga ah yaa ayaguna guryaha ku deegaanka ah kuma antarin inta guryaha ku deegaanka ah ee laga keeni doono kuma antarin aad bay uga soo badanaysaa ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana yiraahdeen uwad markaad u jeceshahay uwadka ma aha in bariiskooda iyo maryahooda uun ku ururno haddii laga ururo oo darrita markuu 20 jir noqdo waxaad u tahay wax la siiyay garan maayo haddii aan wax barin wuxuu ummadda ku anfacayo ee adiga ku anfacayo alisiiradiis uu ku anfacayo dadka iyo ummadda iyo adigaba waa markaad wax bartaa ilaahay bariis aad weyda ku ciqaabi maayo culimadu way noo sheegtay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أصغر ربك خطابك ينصر مرينيا لكن دمان أمته هذا الله ضيا وحول الله هيواني محمد عليه الصلاة والسلام دتك واني وحشك وانا ذو وحي أنفعيسا لمن آمن بالله إيمانا صادقا نك إلهي الرمين دبا مؤمن كوحبي تري كي كلنا حجة أي كتاع واني بالي رسولك عليه الصلاة والسلام أي كمدة ماشى الله يقان الدري مرة بيفريسينك قرك ماشى الله يقان محمد هذا اللهم صل على محمد قد ورابه ويقرأ يمكن حتى وحان وحكبلوني محمد هذا بل مصير سن حاجة النجحية وحص أردن وحيبها هنا ددال ay u baahan yihiin waxay uga baahan yihiin dadka gudaha dadka magaalada degan tuulooyinka degan aynu sheegnay wacyigelin fara badan bay u baahan yihiin idinka madrasada ardayda marka la qoro odayga iyo islaanta iyo inanka yar inta wax bay ka baranayaan macalinka uu ka faa'iideysanaysan haddii laakiin macalinka markuu ardayda wax u dhow sii daayo isaguna meelahan iska joogo waa in marka ardayda sida islaamaha ay u yimaadaan masaajidkii odayaasha ay u yimaadaan waxa kale inta ka dambeysay madaarista kala saan u daba galay aan imtixaanaadka u qaadnay sanadkii laba jeer uga qaadno ayaan uga qaadi doonaa insha Allah taala anaguna khayrka maanta niya keenay Ballicigaal la keenay
sida uga faa'iidaystaan ayuunbaa wixii dambana lagu qaban karaa kolley furayaal bay tahay oo waxqabadkii axmed xaaji ismaaciil warsame uu noo keenay waxqabadkaa wuxuu u horseedi doonaa balcigaal inay noqoto bayd layskugu yimaado oo lagu soo hirto oo boodhin leh haddii taa la garan waayo oo deegaanku garan waayaan iyadoo waxay noqon doontaa mid hawaaqixuma ku keeni doonta deegaanka awalan ilaahay baynu mahadnaqaynaa allah subxaanahu watacaala nagu galladay nicamka faraha badan leh taasoo aynu imika u joogno daahfurka xafladan qiimaha badan leh aynu ku daahfurayno madrasadan laga hirgeliyey magaalada balcigaal waxaan iyadana u mahad celinaynaa dhammaan qof kasta oo ka qayb qaatay hadday tahay qurbajooga iyo hadday tahay qurbaljoogaba oo khaasatan dhismahan ay iska lahaayeen qurbajooga oo ka wakiilahaa axmed ismaaciil warsame waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin hore ayay u ahayd inaynu hawshan u bilowno gacmana wada jir ayay wax ku gooyaan annaguna runtii insha allahu waxaan joogtayn doonaa inaanu ka warhayno haddii ilaahay ka dhigo allahu tacaala madrasadan cusub anigu shakhsi ahaan nuur cabdi jaamac ahaan waxaan ugu deeqay 100 kitaab oo qur'aanka kariimka ah oo iskugu jira kuwii yaryaraayo jisca ma ahaa iyo kuwii kale iyo sidoo kale kartoon buugaaga oo waxa kale nimaka iyadana qalimaantiba la socota qalabka waxbarasho oo shakhsiyan anigu aan ugu talagalay in aan madrasada ku maamuuso haddii ilaahay ka dhigo ayaan wareejinayaa iyadana sidoo kale kuwa halkaa yaalla ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naga aqbalo oo waxa weeyaan inuu ilaahay naga aqbalo oo waxa weeyaan ubadkeena yaryar ay wax ku bartaan bari ka maalinna aan ku soo noqono iyadoo ay ubadkii halkaa ay wax barteen waa farxad bay noo tahay istoo ka qayb qaadatay madrasadan dalgiya dibadda maxay ahayd hawlaha hadda waxaan jecelahay inay dhammaan yihiin malcaamadu ay dhammaan tahay hawlaheedu maxay ahayd dabeetana waan ku wareejin doono guddida ayaan odhanay sideed ayaan ku wareejinayaa waxaan kaloo idinku wareejinayaa kitaabo 100 kitaab iyo 100 buug iyo 100 qalin oo ay leedahay inantii uu sheegay naciimo weeyaan waxaan kaloo jecelahay in maxay ahayday aan ka hawlgalo ama aan idinka caawiyo macallinka intii suuragal noqota ama 6 bilood ha noqoto ama sanad ha noqoto ama 2 sano ha noqoto inaan idinka kabo idinkuna aad samaysaan sanduuq oo ay iska bixisaan wixii aa awoodaan oo aydaan isdhiganin anigu waan idinkabayaa intay doonta ha qaadato waan idiin hawlgelayaa idinkuna waxaan idinka rajaynayaa waa cabdirasaaq qaasin jaamac telefishinka Som News deegaanka Balli Cigaal oo ka tirsan gobolka Daad